oo qiimo leh waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay igala qayb galo todobada waatankii calankeena reer Masar dadka qaadiro ku nool dhallinyaradayada iyo dadka reer Jabuuti dhammaantood caawa waa habeen qiimo leh oo sharaf leh oo nagu weyn meel kasta oo lagu dhisay calankeenana inaan ka maqnaano maaha waa inaan joogno waa waajib ina saaran sida ugu quruxda badan ee diinteena oo qoshahay inaan u xusno waa wax qurux badan ilaahay wuxuuna ummadda wuxuu ilaahay u abuuray uu soo dhaliyo adduunka kale iyadoo xora mileela qaaday habeenkan hele weeye aniga khaasatan horta intii naanta fadhida waxaan malaynayaa aad baad u wadeegartiin aniga waad iga wadeegartiin malaa qof iyo laba ayaa garanaya taariikhdayda markaa soomaalidu waxay tidhaahdaa haddii lagu sheego waa la isshareeraa bay soomaalidu tidhaahdaa haddii lagu shareerana waa la issheegaa markaa caawa waxaan jeclay inaan isa sheego waayo hadda kabacdi waan gaboobay waqti baan joognaa 36 sano calanka haysanaa weli wixii aan soo qabanay ee dalka u soo qabtay aniga faadumo magacayga waa taqaanaan waxa la yidhaha erbaayi sooma kulligii waxaad isweydiinaysaan sababta la yidhi erbaayi maxay tahay waxa weeye intiina garanaysaa waad garanaysa inta aan garanayna anaa caawa u sheegaya waxaan idiin sheegayaa maalintii halganka aan bilaabay waxaan ahaa anigu 8 sanaan jiray 8 sano waxaa la igu joojin jiray gaaska faantada marka mikrofoonka gaari waayo gaaska faantada ayaa la isku saari jiray waxaa markaa itaabteeno intaa leeg gumaysiga iyo dhibkiisa iyo dadkeena wuxuu ku hayay sidii uu layn jiray sidii uu qawrici jiray sidii uu raabi jiray sidii loo dhubi jiray marka waxa weeye waxaa ka mid ah waxyaabihii halgankaan kaga qayb galay waxaa ka mid ah heesihii aan u qaadi jiray odayada oo tur ciyaari jiray markay dumarkii carruurta halgelayeen waxaan odhan susaaxaagu waan jeclaa inaan idiin sheego aabayaan ku qayday bartatiina eego shaarka ku jakeeyiyo dadkiini maduruba sowka dalkii daayacan waxaas ayaan ku heesi jirnay anoo gaajaysan oo gurigeena ka soo cararay baa sida waqti kastaba eebaa-ida u joognay oo qaaqda haynaynay habeenkii calanka la saaray anigu waan hallaabay waxaa laygaga tegay meeshii calanka la saaray waxaan ku hallaabay xagga arcibayo bannaanka xagga badda ayaa u dhaqaaqay markaana fariiday 12 habeenimo calanka markii la saaray waxa weeye calankani haddaan meel walba joogo waxaan jeclahay marka la xusayo inaan joogo aad baan ugu faraxnaa cadowgiisa alla ajariyo dalkeennana ilaahay waxaan uga baryayaa kii gaadha meel adduunku gaadhin allaha ka dhigo tacabkayada ilaahay ma khasaariyo markaa waxaan ii sheegayaa xoogaa markay wiilal iyadoo dhalinyaraha oo waddankan jooga ayaa soo qaanqaabiyey arrinta tan xuska quruxda badane markay ii yimaadeen waxaan marxaba anigu xaqa la yidhaahdaa ku eebaayi weli eebaayi u baanahay markaa waa inaan ka qayb galaa gabay yar oo gaaban ayaa tiriyey gabaygii baan rabaa inaan idiin sheego oo maaragtay caawa igu xasuusatiin reer qaahira insha allah waxaan tiri anigoo caruuro cilmigaygu buuxsamin calankaan u daalow cishadaan ku taagnaa cudurkii la daayo dadkii ciilanaaye gumaysigu cagtiisiyo ku cadaajay qoriga farxad caafimaado carruur iyo ciroolaba kuu wada ciyaaree cirka muunadiisiyo cagaar midab lamoodiyow
شومو على مساري الله عدو كاشرو الله عيد كاديو الله عدو كاشرو الله عيد كاديو عدكاء كاتا دفو عانا ينبال الله أي كعيدان الله وانا كأدريو إنت سلاء كادان إلا هتان كنوريو هتان إيدي شوغبا هبين تاعد ورتان إدري وجعله iyo mid kale oo isaguna calanka u ka hadlaya calankayga saxanow saba iyo barwaaqiyo saba iyo wanaagow suugaanta gabayada kii lagu sifeeyo samaydii u shaada sigirtida nahaydo sadqadii wankaaga sabeen ugu curato sarka aad ku joogtaa suuradaha qur-aanka iyo sali lagu akriyayo adduunyada siloon ee ka socdeen dagaaladu allah kuu sakhirayo ummad kuu samrayso kaa seexanayno ku sugaysa adiga sare kuula joogtee siraadkii dalkaygo ka sabee daruuraha u saree adduunyada anoo sagii calanka sacabka u tumayo waxaan idinku dardaarayaa in yar oo dardaaran ah waxaan idin leeyahay reer Jabuutiyow dadkaygiyow dalkiina jeclaaba dabadda inaan uga wada baxnaa ma wanaagsana qofkii socdaba qof kalaa dabad tegaya waxaad heshin dalkiina iyo dadkiina jeclaaba waxaan u maleeyaa dadkii dabadaha u soo baxay wadaannimadu waxay ka dhigan tahay waad aragteen nin walba ku fikir sida dalkaaga aad ugu noqon lahayd ee wax ugu qaban lahayd. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi cawo waa gabar yar oo ammaanada aad iyo aad baa u suugaanta caawa halka laga leeyahay iyo riwaayadda caawa halka laga sameynaya iyadaa soo samaysay waa gabar reer Jabuuti ah waa dadka lagu faano dadkiina waxgaradka ah weeye ee suugaanta iyo samaynaya midhaha weeye gabadhaasi caawa waxay soo samaysay wax qurux badan caawo ku soo dhaweysay المرسي والسلام يا أبوالدنا وأنا قياد سوق الدنيا وناسين الناس وقدس يقام قابله وأنا برنامج كلاس وقدس كنت أيضا وقت سأقول من جديد أتبع السلام يا وأنا محمد قياد من البنين كمان بناتي هوش كل شيء تاني أتبع محمد قياد والسلام يا بناتي وناسين بالوقت اللي السؤال إن شاء الله قبل أو هيجي بقى أسرع للسيد إن شاء الله. شو هيا كده هنسينا نقولنا هاي نقول هاي بيتانتي يدنتي أباوه يتي أين هايسان يدنتي أباوه يتي أين هايسان منطقة رقي هراء اللي يدي بقتها السؤال قبل شيء أبكي أو تدارين أو شادو قريين هم أقول عيين نأبكي هايسيو نأبكي هايسيو يدي وطوران وشي وحلالين سيدي عليك الله هيا يوم الراديو هاتسانين يا عدو نسأل كبقنين هكو عليس كوابنين إذا نعبكي كل أقوام عدوين فبغني أطالي مكي حلالين والبين لا لما أنتمي وضمان المشحرة فرحها إلينا إنسان يجينا إلهي على كيانا هيبنا هيبنا بسارين وهو قلنا أيسيو سيدي أو رجاعي هيبنا كوالعيني كيبنا لحلايسي وقت لكو قرائيو أمبني رجاني صوي رجاسي نفسي أيوانيو ديكي أيوانشين حسوستي سنيحي بيان والمامون كدلاب الإلهة قارتان والواقع بلانكسو علي لبا محمودكي يومي بقول المغرسيكي يسمي إلى ملجدة لما الله بيا مقن